حلباكود كاغفوري مدحوينه مدحوينه كيغا وكعو كيغا وحلو كيغا ورماري كيغا كيغا ورماري كيغا كيغا ورماري كيغا كيغا ورماري كيغا دولهان دوليدو ويقرو ضيو كودايدا ليسنا قاري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. لما أنتين واد مهتسنتهين سو أجيبدا السيدة روحدا بدل فردقا وعن أدوسو أجيبتين وادكم مهتسنتهين مربوين هي مضنيال با لما أنتين وأن بلابنا هوشي إني عاوة إنه هالكن يسبقون بدنا جهلية سوماليلاند إنه هالجلسي وأن بلابنا وحنا كفرنا آية القرآن آياتها قرآن كان إبراهيم عبد ورسبة قضال أنا بلابية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله ينقو أنفعها هذا قرآنك أو شيء وفرنتاي waxaan ku soo dhaweynayaa Jamaal Jaamac oo gudoomiyaha guddiga community-ga. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. magacayga waxa la yiraahdaa Jamaal Jaamac. waxaan marka ugu horeysa halkan aad iyo aad ugu dirayaa hambalyo aad u weyn madaxweynaha cusub ee aynu yeelanay mudane Muuse Biixi Cabdi يا مدحوينك حقيقة يقول الله عبد الرحمن عبد الله waxaan doonayaa inaan halkan runtii ma doonayo inaan badiyo dhammaantiin waxaan halkan oo soo ka salaamayaa dadkii soo qabqaadiya xasadan oo aan aad iyo aad u baranayay kulay haween ku dhacday idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin. bismillaahi raxmaani raxiim wallahi maqlayaa si fiican intii ka soo qayb gashay rag iyo dumar dhaxanta u soo guday xilliga caruurtoodii iyo reerkoodiiba u soo huray naftooda inay ka soo qayb galaan rag iyo dumar caruur iyo ciroole mahad gaara intii soo ajibtay ayaan u naqayaa waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan mahad gaara u naqayaa safiirkeena qaaliga ah رشيد ما كان كلام نانيست قارف يعني حتى كوني ونقيا إلى أيدمكي سيدو الرماء سيدو سوتو برهدي سيدو ساجيبي سيدو ونكسنو نودي رجاليي سيدو سو محيا إذا نوتا كليي حدانا يسوق يقبضها حدانا يسوق دينو قبقابيني وحمل نومي صورتك قلانو نوران قوهن قبطة والد اللجرة سعدة إستغانا محد قارة ولا سوكو بكرين رشيد أيانو مقنقا يا سفيركا صعبك الله قرع وحكو حيقا مدحدين الله دورتي قالقا يا مدحوينة هنا السب موسى بيحي عبدي يا مدحوينة كحيقانك عبد الرحمن إسماعيل سيرعي iyagana mahad gaara sacanka waxaan ugu baryayaa ilaahay inuu xilka ku asturo min bari ilaa galbeed inuu dadka u sakhiro ilaahay iyagana inuu ku guuleeyo hawsha adag ee loo doortay ayaan iyagana ugu ducaynayaa aamiin ha loo dhaho wax xilkana allah u fududeey waxaan la soo koobi karayn mahad
dumarkii dhexda u xidhay ee arrintan ka soo shaqeeyey oo aanan habeen ka caawa mahadnaqooda dhammaynayn laakiin dhowr dumaraan ka soo qaadaya lambar 1 waxaa u horeysa Khadre Maxamed Rodol sacabka loo qara Khadre waxay ahayd abaabulka ugu weyn aabbahan ee kacay tablada dhigay taakuleeyay waxayna siinaysay ra'yiga ugu mudan haddii aan iyadu arrintaa qabanna waxba noomay soo hortagaleen Khadre waan u mahadnaqaya waxaa Khadre ku xiga iyadana aan la ilaawi karin Fahiime Maxamed Aar oo iyaduna intay dhexda xidhatay decoration iyo keeg iyo wax walba isku soo dubariday iyo fikradaha la soo koobi karin Fahiime waan u mahadnaqayaa sacabka loo qara tuwa la ilaabi karin baa jirta la yidhaha Faysa Diiriye Faysa waa haadbahaad kici Faysa iyadiyo baabuurkii iyo steerinkii baa isku qalalay siday meeshay ku suurta gasha u raadinaysa Faysa waxay raadisay meel arrintani ku suurta gasho Faysa waxay la yidhi waa Thanksgiving meel ma hayno waa Christmas meel ma hayno waa New Year meel ma hayno meesha 20 qof bay ka xoogtay oo iyada lagu siiyey haddana iyadu meesha soo helin haway suurta gashaan inay arrintaasi suurta gasho ha loo garaaco Fahiime sacabka Faysa sacabka loo garaaco way ka raali ahaad waxa ku xigta gabadha laba soo koobi karin hawshay qabatay waa Asiya Ismaaciil Aadan ilaa habeenkii la yidhi meel baa la kireeyay ilaa habeenka caawa ah waxay raadinaysay dadka kaalaya ka soo qayb gala waxa isku qalalay telefoonkeedii iyo gidaarkii siday u ahayd war kaalaya war sidaa maaha war soo yimaada iyadiyo telefoonkii iyo gidaarkii iyo jaarjigii baa isku qalalay Asiya sacabka loo qara waxa ugu dambeeya anigoo Sahra Jaamac Magana anigu waxaan ahaa qofka ugu dambeeya lala tashada ee saxeexa wax walba markay inta dhammi markay isqabsadaan kuwa aniga garka loola yimaadaan ahaa markaasaanaa kala jooga sidaa maaha way noo hirgalaysaa wax walba way hagaagayaan halkaa ka wada saxeexa u dambeeya iyo xagga iyo bokod maniga ugu dambeeya ayaan aniguna ka mas-uulaha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga ka baxsantay meesha hay ana kana ku soo dhawaada Asiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Sahra sacab gaar ina u tuntaan bay ahay bas waxay ahayd hooyada ka dambeysay hablaan hawsha qabtay oo dhan waayo in badan bay noolan jirtay odaygaygu waa odayga magaalada marka iyaduna waa islaantii magaalada daagaa waa leedahay laakiin taytalkaas iyadu leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya intiina na ajiibtay ee noo timid in communitygeennan haddaan ka yaro warramo waa community fiican anu imika 21 sanadood baan Virginia deganamaan rabinaa sheego daada igu soo baxaysee hasa ahaatee intaa 3 madaxweyne dalka iska bedelay way noo yimaadeen waa cigaal Allah u naxariistay 99kii noo yimi waa Riyaale waa Siiraayo marna campaign gareynay marna madaxweyne ahaa wafdiyo badan oo wasiirale oo wax walba leh ayaa noo yimin jiray intaba haddaanu nahay communityga magaalada isku sidaan u soo dhaweyn jiray macal kuwa xisbiyadii hore markii imka 3 xisbi maahay kuwa ka horeyn jiray isku sidaan u soo dhaweyn jiray marka bulsho fiican oo is haysata oo isku mid ah oo is jecel baan wahay aad iyo aad baan idin salaamaya casho wanaagsan sanad wanaagsan dawlad wanaagsan waxaan ilaahay madaxweynihii ku xigeenkiisa waan hambalyeeynaya insha Allah madaxweyne إلا لا شقية ويان مركو حنفلا يا إنه إلهي الجرجين يا إلهي إنه حوشة أفضل ذا يوم. أنا ما كنت صور وين يا عبد الرحمن. عبد الرحمن.
ما هذا الكل تشرع عبد الرحمن وريحي أهلا وسهلا. السلام عليكم. وحويان حسبيا إمك وحويان والديمقراطية ريبوبليكان ويفوت أما الديمقراط بدو فوت قرين أما الريبوبليكان بدو فوت قرين لكن شكله مركز لما توي all Americans right yeah سؤالنا إنه وصلوا كله سؤالنا مركز election كله ما هذا كل الصومالي لا بدري الصومالي لا برنا مركز وين نوسو جيسنا هو مركز ودن كينا إنه قدرت كوين نسوي ذا يجي كل جين وين وحقبنا وين نقول كينه وحتنا أنا وقتك ودن كيم كنا على الباب قدنا قلبات كان كذا صوب بلون حوجا discrimination بس وين يا موقت أبارا كبقنا بريك كي ما دينا نقول عن مركز على الباب قدنا على الشيء اللي قدنا بس يا شيء اللي يجيبنا قفل بوين والعقد بحياة قفل بتشيب كجلي تدخلوا بعينهم بس يا شيء مركز أنا أنت سكجا بحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن عبد الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا مياه سيدا ميكروفون كلوجو هدانا نقولنا هدي مقل ويدان هاي لا يابنا يا عاو إيكوي مركا هدي الله يروح حندوري إن دورتوان وحندوري هالكنا كسلامة لما شعبي الرئيس سومالي لان وذا يدبده وحنقارو سي سلامة يا dadkii doorashadii codeeyay sida wanaagsan ee xaragada leh ee wadaniyadu ku jirto codeeyay ee wadankooda u heeliyay waas horta salaanta koowaad leh mahad gaarana leh ilaahay baa mahad leh mahad gaaranay kuladaas aan siinay waxaan doonayaa oo kale inaan halkan laba arrin oo kale siyar dul taago mid waxa weeye horta oon xoogiyo laxaad u hambalyeynaya madaxweynaha cusub ee la doortay iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee la doortay oon ilaahay uga rajaynayo in xilka ilaahay ku asturo una sheego in Soomaalida waxay tiraahdaa nin xil qaaday eed qaad waxa weeye hawl yar maaha waa mas'uuliyad weyn waa arrin ballaaran marka iyaga dee duco iyo ma garanaysaa iyo tusaalaba in la siiyo way u baahan yihiin waana in si walbana la isu barbar taago marka iyaga halkaa intaa u dhaafi maayo qodobka saddexaad aan doonaya inaan ka hadlo waxa weeye waxaan doonayaa inaan halkan dhowr eray ka idhaahdo da'yarta Somaliland hadiyo goor waxaan maqlay jiray odaya daraga waaweyn oo leh ma garanaysaa hadiyo goor taariikhda wixii la soo dhaafay ya halaga faa'iideysto dadku waxay ku nool yihiin ma garanaysaa wixii ay ahaan jireen oo yaqaanaan iyo wixii soo maray oo ilaawin marka waxaan doonayaa horta inaan mid da'yarta reer Somaliland meel kasta ay joogaan inaan u sheego maanta inay nasiibkoodu fiican yahay oo wadan wanaagsan iyo dad wanaagsan iyo dawlad wanaagsan intaba ay haystaan marka waxa qurahe la gudboonay tahay inay wadankooda khayr kale ee khayraad kale ee wanaagsan inay ma garanaysaa inuu u muuqdo oo ay wax ka qabsadaan oo ay hore u mariyaan ninka cadhaysan ciddu doonaha ahaadaana ay iska ma garanaysaa aanay dhagu dhigin wixii dantooda iyo danta wadankooda awhuun ay ka shaqeeyaan marka hadiyo goor nin weyn oo raggii waaweynaaye berigii inqilaabka dhigay ka mid ahaa cawil wasiir cawil cali ducaale hadiyo goor markuu hadlayo wuxuu yidhaahdaa taariikhda waxa laga barto ma garanaysaa. السلام عليكم دمانتين با طبعا marka hore inaan u mahadnaqo hablihii la'aantood runtii aynaan xaawo halkan isugu nimaadneen community-geena runtii aad baynu isu naqaanaa xaflado badan baynu isugu nimi hawlo badan baynu wada galnay mar walba cid baa isxilqaanto oo hawsha qaada laakiin unfortunately waxaa dhaca mar walba intaa isxilqaanta ayaa hawsha oo dhan from A to Z ay ku dhacdaa habluhuna they were very gracious weliba sahri ilaahay dambigeeda ha dhaafay aniga way amaantay inaan hawsha ka qayb qaatay runtaa sheegaya wax laala iyo waxaan ku darsaday ma jirtay dhammaanteed waxa sameeyay hablaha
markaa waxaan doonayaa horta inaan hablaha u mahadnaqo oo ay ugu horreyso khadre rodol oo ay ku xigto sahra oo jaamac oo ay ku xigto aasiya oo ay ku xigto faayisa oo ay ku xigto fahiima oo ay ku xigto بعد ما قلت ها marka horta runtii waxaan jeclay inaan saacad ku garaano u mahad noqono in waxa soo hawro inoo qabteen waliba waxaan ku sii darayaa qaasatan hoolka inta xagga fadhiday ee raggu u badan yahay cashada wanaagsan ee caawa aynu cunayna iyo hawsha wanaagsan ee isugu doodhawaanay lacagteedana dumarkaa bixiyey halkaa inta laga bilaabo inta xagga ka xigto ayaa bixisay marka horta waxaan leeyahay hawsha inaad qabateen oo ku mahadsantihiin mooyaan lacagtii inaad bixiseenna waa ku mahadsantihiin annaguna waanu idinku garab taagnay marka horta waxaan rabaa intaa hore mahadnaqa inaan isu raaciyo waxa aynu xafladdan caawa u dhignay inaynu ku congratulate garayno haynoo dambeeyaan muuse bixi iyo cabdiraxmaan seelaciye runtii guusha maanta aynu u dabaaldegayno caawa waxa iska leh reer somaliland shacabka somaliland ba iska leh qaranka somaliland ba iska leh sidaa u ogtihiin dhammaantiinba every time aynu doorasho galno magaceenna iyo magaca qarankeenu ayuu kor soo qaataa waxaad nasiib u hela mar walba inuu qof doorashada ku guulaysto oo qofkaasaa xukunka qabsada maantana waxaynu taanideynaynaa muuse bixi iyo cabdiraxmaan saylaci laakiin runta marka laga hadlo the winners of this election waxa weeye shacabka somaliland iyo qaranka somaliland qaran yaroon cidina inagu waxaynu nahay qaran yaroo aan cidina aqoonsanin caawimo badanoo ama taageero badanoo aynu caalamka ka helaana runta marka la sheego ma jirto waxa aynu ku taagannahay taageerada aynu istaageerayno iyo taageerada dadkeenu ay qarankiina taageerayaan afrikada kontonka waddan ku yaalaan inteeda badani mabay gaadhin halkaaynu inagu maanta gaadhnay sababteedana waxaa iska leh shacibka reer somaliland marka anigu runtii guusha caawa waxaan rabaa inaan u mahadnaqo oo aan ku tahaniyadeeyo shacibka reer somaliland ee waddanka gudihiisa jooga kuwa tartama kuwa codeeya ee haddana aan isdirin isuna cadhoonin inagu qurbo joognaba waxaaba laga yaabaa tartanka afrika ka dhacaya iyo kala raacista aynu maraykan ku kala raacayno ayaynu isugu cadhoonnaa bal hadda ka warramo kuwa wada jooga ceergaabo iyo burco iyo boorama iyo berbere iyo hargeysa ee midina sabtida baxo midina axadda baxoo soo kaambiin gareeyo haddaynu inagu kuwaa nahay maxaynu samayn lahay inagoo maraykan joogno oo aan codaynayn oo aan magaranaysa ayaa laga yaabaa inaynu sidaa isugu cadhoonno marka horta waxaan tahaniyadaynayaa oo aan u mahadnaqayaa oo aan guusha caawa siinaya shacabka somaliland ee waddanka jooga ee kaambiin gareeya ee codeeya ee doorta madaxdooda ee codkooda ku doorta waxaan kaloo tahniyadaynayaa saddexdii xisbi ee tartamay ee sida nabaddaa ku tartamay ee oggolaaday go-aanadii ka soo baxay ee istahniyadeeyey iyaguna waxay naga mudan yihiin mahadnaq iyo tahniyad dhammaantoodba waxaan ku xigsiinayaa oon tahniyadaynayaa madaxweynaha muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylaci iyagana waxaan leeyahay xilkanu waa xil weyn ilaahay haydinla garab galo sidii kuwii idinka horreeyey ayuunba maantana idinkana laydin filayaa inaad nolosha dadka shacibka ee reer somaliland aad difference u samaysaan marka iyagana ilaahay xilkaa hala qabto cashadii bayna sugayso mar raba inaan idinku dheereeye waxaan mar labaad ku celinayaa oo kusoo gunaanadayaa hablihii xafladda inoo qabtay hablihii hawshan oo dhan soo galay runtii aad bay u adagtay inaad weekdayska aynu hawsha intaa leeg qofku qabto waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin intiina ka soo qayb gashay ee caawa halkan aynu ugu wada dabaaldegaynana aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آسيا سoo noqotay doorta casho wanaagsan inanta yar muuna la yiraahdaa muuna hooyadeed baa ii keentay waatan waxay tiri aniga ku hadlaya community-ga Soomaaliland caruurtooda waxaan rabaa inaan tahniyad diro madaxweynaha way ii tiri marka muuna ayaa hadlaysa ma sha Allah
Assalamu alaikum. Congratulations, Musubi Akti. President of Somaliland, Musubi Akti. How about Vice President? Congratulations. Somaliland waa guul